waxa hadda sensitive laho oo isleeyahay farmaajada saameyn bay ku yeelanay ama caqabad bay ku noqon karaan waxaan cabasho ahayn adiga yaa codeyn la sharciin waxa codeyn la farmaajo codeyn la mar labada ku soo laabtaan codeynaya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan jeclahay 4 sano oo dambe ma aha 50 sano oo dambe inuu nala sii joogo cabdullaahi maxamed farmaajo maxaa ugu sameynaysaa maxamed farmaajo niyo xasan sheekh maxamuud waa nin istijaabiyey waa nin waay araga waa nin dalka Soomaaliya isku hayn kara salaam warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh channelka anaga daawansan waa channelkeedii ma humihiina weeye ma hiina habaysta maqaaxida la kala kiciyo meesha cas hal cadeey galabta xagaan u socnaa barnaamijkan galabteeda wadna muxuu yahay barnaamij xiisa gaar wata xiisihiisa leh doorashada 2022 adigaagana daawanaya mudane iyo marwo yaad u codeyn lahayd hadii lagu dhamo sharax u codeyn lahayd iyo suuqa magaalada Boosaaso mar labaad iyo mar saddexaad ha maqnaanina hana moogaanina channelku waa channelkiina hal share gareey muuqaalkan mar walba iyo xilli kasta iyo goor walba soo gaaro share gareey wax walba ay ku tahay wanaagsan la socda khiyaarta hoodan la socda wadada kulay magacaaga Axmed Cabdullaahi Axmed baa leeyahay magacayga Axmed waxaan ka hadlaynaa doorashada 2022 dowladda federaalka adiga hadii lagu dhawaacday musharax u codeyn waxaan u codeyn lahaa madaxweynaha qaranka farmaajo farmaajo wada ognahay wax la loolamay musharaxiin aad badan awoodo badan marka codkaaga maxaa ku sababay codkayga anigu waxaan ku soo biyay ninkaas waa ninka kaliya oo danta dalka iyo dadka ka fikiraya taasaan ku soo biyay marka waxaan rabaa in la soo celiyo madaxweynaha qaranka ee hadda inoo haya xilka intuu hayayna waad ogtihiin waxa uu inoo qabtay madaxweyne ka horeeyo inoo qabtay ma jiro waayo ciidamadii qaranka ayuu dhisay wuxuu soo celiyay maxaan ku yiraahdaa haykalkii dawladnimo arrimaha dibadda wax weyn ka qabtay maxaan ku yiraahdaa dadkii duruufaysnaa ee Soomaaliyeed ee dalalka dibadda ku dacdaraysnaa ayuu maxaan ku yiraahdaa dalkooda dib ugu soo celiyay in badan oo kamid ah marka waxaan ku dooranaynaa wax qabadkiisii hore magaalada Muqdisho ayuu meelo badan oo maaragtay muhiim ah oo danta guud ayuu dhisay marka arrimahaas oo dhan ma ku dooranaya insha Allah iyo saara subscribe ii dhaha ii share gareeya ilaahay baa idinku dhaarshay السلام عليكم soo dhawaad ku magacaaga magacaaga maxaa warsamo xirsi baan la yiraahdaa waxa kamid ahay ganacsatada ku nool magaalada Boosaaso runtii waa soo dhaweynaya madaxweynaha inuu si fiican mar labaad waxaan ka hadlaynaa doorashada 2022 dowladda federaalka hadii lagu dhaw codee yaa u codeyn lahayd runtii dadku meesha u badan yihiin baan u codeyn lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo ninkaas aad loo hadal hayaa rajadeena waa fiican insha Allah inuu soo noqdo mar labaad waadu waxa wata Farmaajo aad iyo Puntland oo dhan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa salaamaya ilaahay dawlad xaq ah oo waa arkay oo noo muuqata ilaahu gargaar adu yaa u codeyn lahayd hadii lagu dhaw codee 2022 cabdullaahi maxamed farmaajo maxaa ugu sameynaysaa maxamed farmaajo iyo jiilkiisa maxaa ugu sameynaysaa farmaajo waxa loo loolamaya madaxweyne musharaxiin fara badan Soomaaliya ilaahay baa u soo diray kuwa kale ilaahay uma soo dirin okay soo dhawaad ku magaca waa Faysal Same Faysal waxaan ka hadlaynaa doorashada 2022 hadii lagu dhaw codee adiga yaa u codeyn lahayd musharaxiin waxa codeyn la farmaajo codeyn la mar labada ku soo laabtaan leeyahay farmaajo maxaa ugu sameynaysaa codee waxyaalo badan buu macna wadanka ka bedel Soomaaliya qaasatan mar labaadna waxa jecelna inaan doorano sax waan dhawahay Zaynab waxaan ka hadlaynaa doorashada 2022 dowladda federaalka adiga hadii lagu dhaw codee yaa u codeyn lahayd waxaan u codeyn lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo codeyn lahayd sayno wada ognahay awoodo fara badan iyo musharaxiin badan baa la loolamay marka maxaa ugu sameynaysaa codka waxaan u sababaynayaa haddii aan xaq la dadaynin isbedel muuqdo oo la taaban karo ayuu wadanka ka sameeyay waana nin maxay ahayd aan aragno inuu rabo inuu Soomaaliya waji cusub uu caalamka ka gado oo maxay ahayd uu Soomaaliya ka dhigo dal xasiloon isagaan u soo shaqo tagin sidaan ognahay oo mushaharkiisa xitaa dadka masaakiinta siinaya inuu dadka masaakiinta wax u qabto wadankana inuu dhisuu rabaa marka waxaan oran lahaa war qabiil aynu iska dayno ninkii dadka wax u qabanaya aynu dooran saasan anu ku adigaaga haddana daawanaya subscribe-ta gambaleelka furo like-ta saar commentiga share-tana haylaaw وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad ku bilaay magacaaga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Muuse Cabdiraxmaan waxaan ka hadlanaa doorashada 2022 dowladda federaalka codee hadii lagu dhaw adiga codeyn lahayd musharaxiin codeyn waxaan codeyn lahaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codeyn aad iyo aad buu sababtan ugu codeynayo waa madaxweynaha qaranka waxyaalo badan buu dalka u soo kordhiyay waxyaalo badan buu dib dhis ku sameeyay
marka saa darteed ayaan ugu codaynaya madaxweynaha qaranka aad baan u taageeraa wadhownahay magacaaga walaana xalda nifsa mahad nafsay waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 dowladda federaalka adigu coday hadii lagu yaa codayn lahaa farmaajo inuu noo soo laabto jeclaan lahayn wadankeena noo seen wada ognahay wax la loomay musharaxiin aad far badan awoodooda la wada og yahay marka maxaa ugu sabayn lahayd farmaajo inaa codayso wallahi bil waxyaabo badan niyada ku hayo wallahi jeclaan lahayn inay kula wadaago farmaajo waayo wadankeena oo sida fiican ula jecelnahay insha Allah waxa rajeenaya inuu ku soo laaban doono soo dhawaad kula magacaaga Seenab Ibrahim Maxamed Seenab waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 hadii lagu dhawaado coday yaa codayn lahayd musharaxiinta waxaan u codayn lahaa farmaajo maxaa ugu sabaynaysaa farmaajo waxa ognahay awoodo badan baa la loomay farmaajo shacabka dhan baa iska taageersan waa nin fiican waxaan dhihi lahayn in la codeeyo farmaajo hada soo bilaabay magacaygu waa Umaarik Cusmaan Cabdik Umaarik waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 hadii lagu dhawaado coday yaa codayn lahayd anu musharaxiinta hadda xilka isku soo sharaxay midna bataatan baa ma codeeyeen waxaan codeyn lahaa General Morgan maanta wadanku wuxuu u baahan yahay xaalad siyaasad isbedel buu u baahan yahay musharaxiintan waxooda waa soo qaateen nin qurbaha ka yimid anaga waxba nooma taray baraa waxaan jeclaan lahaa General maanta Morgan inuu yahay musharax noqdo codkay kaasaan si lahaa hadaa xildhibaanka xataa aqaan lahaa wada federaalka kurti hadaan maanta jeebka wax ku hayn dhalinyarada ah jeebka ugu shuulaa si Morgan loo doorto عليكم السلام معنا soo dhawaad kula magacaaga waa aad boo dhawahay magacaygu waa Cabdicasiis Musa Yuusuf Cabdicasiis waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 dowladda federaalka adigu coday hadii lagu dhawaado yaa codayn lahayd waxaan codayn lahaa Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaan ugu codayn lahaa waxqabadkii 4 sano ahaa seen wada ognahay wax la loomay musharaxiin fara badan oo aad u fara badan oo awoodooda la wada og yahay marka maxaa ugu sameeyay farmaajo adigu codaanka u siisay codkaaga walaalow deesaa ogtahay Soomaalidu waa guraadle waxqabadka ayaa wax kasta mataqaana go'aan ka weyn ah marka waxa isleeyahay 4 sano soo socota insha Allah adiga loo wacdi aad iyo aad adoo ma soo dhaweeyna adigu kula magacaaga Farxiyo Maxamuud Qacle Farxiyo waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 dowladda federaalka adiga hadii lagu dhawaado musharaxiin codayn lahayd la ilaaha illa Allah Muhammad mahayne maalin baa isku mid ah farmaajo lu codayn lahaa 20 sano maxaa ugu sameynaysaa farmaajo waxa loo loomay musharaxiin badan oo awood badan ilaahay baa garab taagan rabbi inta isu tagtay waxa isugu tagay way og yihiin Allah ka qabanaya farmaajo hadda ma soo dhawaado kula magacaaga soo dhawaado walaal magacaaga عليس سواء كان لنا دورشة لبا كويلاتن دولة فدرالك هذه هذه الورا عدي يا عدين لدر ولا محمد عبد الله فرماجو يحسبي سبي نبض نور دنبا محمد جوليد روبله كل حزب نبض نور دنبا تاجرين حزبية بدن أود بدن بالله ولا ما يوقت أود كهري معنا مركا ما حاول رجينا حزبية ده واحد دنيا وقت جود وساقتين ضل كانوا قصود ما بهنا وحسلون يودجين هاي أمانة نسيو قلالنا واحد شيء يا دارات سدية طبعا ما هن كده عدالة يا قدر هذا سينيس هوية قبل كبنادر عيد بوكبت دارود ميلو تشوجبه وأنا سلامي هذا والسلام درش الله كوني الله تكرم محمد عبد الله فرماج أنا صوب magacaygu Sabriin Madaab Sar Sabriin waxa ka hadlana doorashada 2020 dowladda federaalka hadii lagu adigu coday yaa codayn farmaajo codaynaa maxaa ugu sameynaysaa farmaajo waxa la loomay awoodo badan iyo musharaxiin aad u fara badan maxaa u rajaynaysaa waxa u rajaynayaa guul wacan soo dhawaad kula magacaaga Maslax Ali Cabdiraxmaan Maslax waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 hadii lagu adigu coday musharaxiin codayn lahayd maxamed Abdullaahi Farmaajo farmaajo codayn lahayd seen wada ognahay wax la loomay xisbiye badan awood badan iyo musharaxiin badan maxaa codkaaga ugu suubisay markaa danaha wallahi farmaajo mar walba farmaajo anaga marka waxa la 4 sano waa ka farmaajo weeye halo loogu celiyo qanadina walaal magacayga waxa la Cabdullaahi Qaran Cabdullaahi Qaran waxa ka hadlana doorashada 2020 adiga hadii lagu dhawaado musharaxiin codayn lahayd waxaan u codayn lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo seen wada ognahay wax la loomay awoodo fara badan iyo xisbiye badan marka maxaa codkaaga ugu suubisay codkayga waxaan ku suubiyay waxa intuu xilka hay wuxuu qabtay baan arkay marka waxa kamid ah hawadii buu soo celiyay ciidamadii buu dhisay hadii arrimihii dibadda wax badan ka qabtay mushaaraadkii buu bixiyay waa nin u qalma 4 sano oo soo socota iyo 4 kale lagu sii daray waliba marka waxa leedahay adaga loogu cimaamada oday waxaan leeyahay waxa leeyahay soo dhawaad warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaad kula magacaaga aad baan u dhabaay magacayga waxa Abuukar Nuur Maxamed Abuukar waxaan ka hadlanaa doorashada 2020 adigu hadii lagu dhawaado musharaxiin codayn lahayd waxaan u codeynayaa farmaajo aan u codeynayaa waxa ugu sameynaysaa farmaajo waxaan ognahay awoodo badan baa la tartamaya xisbiye badan baa ka hor imaanay waxa codkaaga ugu suubisay waxaan ugu sameeyaa mataqaana waa nin walgar leh oo waxtar leh oo dawladda maanta Soomaaliya meel heer fiican gaarsiiyay oo ciidan dhisay wax walba dhisay
waan ku taageersan inta marka waxa la odaga 4 sano lagu 4 sano in lagu daran rabnaa waliba mucaaradka bixiisa waliba meel laga bilaabay magacaaga مليون عثمان محمد waliba waxaan ka hadlaynaa doorashada 2020 adiga hadii lagu dhawacday musharaxay u codeyn leedahay waxaan u codeyn lahaa madaxweynaha farmaajo aan u codeyn lahaa yani farmaajo maxaa u sababay socodkaaga maadaama dad awood badan loo lamayo farmaajo waxa ugu codeeyay madaxweynaha aslamid wali nooma soo marinbo madaxweyne walba Soomaali laga dardo as ahaan lahayn alxamdulillah si xamar raacda meel walba isku raaci lahayd waxa la 4 sano odaga loo 4 sano waxaan jeclahay farmaajo in loo celiyo madaxweyne walba naxarna farmaajo inuu ku tusaal qaato shacabka u salaam soo dhawaada kula magacaaga walaal magacay Khadra Bashiir Khadra waxaan ka hadlaynaa doorashada 2020 dawladda federaalka adiga hadii lagu dhawacday musharaxay u codeyn leedahay anigu waxaan u codeynayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan jeclahay 4 sano oo dambe ma aha 50 sano oo dambe inuu nala sii joogo waan jeclahay seen wadognahay waxa la loolamay musharaxiin badan maxaa u rajaynaysaa adigu isaga waxaan u rajaynayaa inuu markasta guuleysto Farmaajo waa ninka kaliya oo dalka wuxuu qabtay wax badan maxay ahayd taray dadka marka waxaan u rajaynayaa Farmaajo inuu guuleysto insha Allah Soomaaliya rajay leedahay markasta markii Farmaajo soo noqdo laakiin madaxweynayaasha kale oo dhan ma taageersanay musharaxiinta kale oo dhan baan leeyahay ma taageersanay waa naga joogi karaan bartooda doonta mucaaradkana doon hanaga qaado Assalaamu warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaada kula magacaaga Axmed Cabdi Raxaan Shoolal Axmed waxaan ka hadlaynaa doorashadan 2020 dawladda federaalka adiga hadii lagu dhawacday musharaxay u codeyn lahayd Xasan Sheekh Maxamuud seen wadognahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa la loolamay xisbiyo badan oo awood badan iyo musharaxiin badan oo awood la wada garanayo marka maxaad codka ugu soo bisay niyo Xasan Sheekh Maxamuud waa nin istijaabiyay waa nin waay araga waa nin dadka Soomaaliya isku hayn kara saan aaminsanahay ninka la Farmaajo waxyaalo fara badan markaan qiimeeyay ninkaas oo qurba joog markii hore ahaa gobolada Sool Sanaag iyo Cayn isagoo xoogaa dadkii lumiyay siyaasi ma ahan aaminsanay ninkaas marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay sanadka waa madaxweynaha dalka insha Allah على حسن الشيخ محمد 4 سنه لوgu cimaamado loogu cimaamado odayga Allah bilsoonkiisa qaato odayga daaya warna baadi dawladda federaalka adoo hadii lagu dhawacday yaa codeyn leedahay waxaan u codeyn lahaa de farmaajo mid kale farmaajo maxaa ku sameeyay codkaaga maadaama aan ognahay awoodaha la tartamayo xisbiyada ee la loolamay waxaan u siinayaa codkayga oo madaxweynaha daacada wuxuu qabtayna way muuqdaan qofna daah lama saari karo marka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qabtayna waynu aragnaa cid kale oo dhaantan kuma jirto badee cid kale imka loo codeeyo oo dhaantana imka siyaasiyiinta kuma jirto waa dadka tuugada Kenya iyo baalkeerka u shaqeynaya Itoobiya ninka un baa daacada ninkaas siyaasiga ninkaas waxaan wadanka wadi kara waa ninka imka wixii wadanka deemeeshu gaarsiiyay la arko siyaasadda dawladda wada aragtaa qadar yeemanka iyo imaaraadkiisa hayeenka dhaxalkan ka noqonay imka ku soo soo bogaadinaya marka nimanka waxaan leeyahay tuugada wadanka yeesan aga soo dhigin ninkaas 4 sano lagu cimaamado 4 kan xataa lagu cimaamado assalaamu warahmatullahi soo dhawaada kula magacaaga magacayga anoo ku bilaabay Cabdishakuur Ismaan Cali baa la yiraahdaa jooga magaalada Boosaaso Cabdishakuur waxaan ka hadlaynaa doorashadan 2020 dawladda federaalka adiga hadii lagu dhawacday musharax u codeyn lahayd wallahi waa su'aal fiican maankeena ka gooxaysay in muddo aan waayimeen ka gudbiyo maanta haddaan jaanis u helay kulley aniga iyo anoo ku hadlay ra'yigayga iyo ra'yiga shacbiga Soomaaliyeedba kulley waxaan u maanay su'aashaas waa iska caddahay sadar muuqda su'aal ku dhan tahay cid loo codeyn lahaa oo 2025 wadanka hogaamin lahayd waa madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cid kale Soomaali maanta uma baahna isaga 4 sano waa la bartay samata bixiyay marka intaas aan oran lahaa inta halka joogta iyo kulli waa ila dareen inta saasaan oran lahaa waa dhawax magacay Shukur Saciid Shukur waxaan ka hadlaynaa doorashadan 2020 ee dawladda federaalka adiga hadii lagu dhawacday musharax u codeyn lahayd inay Farmaajo ha seen wadognahay waxa la loolamay awoodo badan iyo xisbiyo badan marka maxaa codka ku soo bis codkay waxaan ku soo biyay madaxweyne daacada waa madaxweyne maxaabiista noo soo furfuray waxaan hadda dareena dawladnimada hore u socotaan ku taageersan marka 4 sano waxa la odaga lagu celiyo odaga mar labaad ha lagu cisho wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waa dhawahay walaalahay aamino waxaan ka hadlaynaa doorashada 2020 dawladda federaalka adiga hadii lagu dhawacday musharaxay u codeyn lahayd farmaajo u codeyn lahaa farmaajo seen wadognahay xisbiyo badan oo awood badan iyo waxa la loolamay musharaxiin badan codkaaga maxaa ku soo bis waxaan ku soo biyay codkayga isaga madaxweyne daacada ah isaga dalka iyo diinta dadka iyo dadka wax u qabanaya isaga maartay madaxweyne weeye daacada dalka iyo dadka waxna la hubo waa madaxweyne la yaqaano marka isaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawaado ku bilaabay magacaaga magacaygu waa xasan aadan ku magac xasan sunni waxaan ka hadlaynaa doorashadan 2020 dawladda federaalka marka adigu hadii lagu dhawacday musharax u codeyn lahayd anigu kan u codeyn lahaa waa la garanayaa kan ummadda Soomaaliyeed ay jecel yihiin
baan u codayn lahaa waa maxamed cabdulaahi farmaajo odognaa farmaajo waxa gal loo lamaya oo la sharaxan musharaxiin aad fara badan iyo xisbiya awood badan marka codkaaga adigu maxaa urjanaysa anigu iyo bulshada Soomaaliyeed inta badan waxaan rajaynayaa farmaajo inuu ku soo noqdo mar labaad iyo mar saddexaadba baan rajaynayaa xisbiyadaasna hadda waxa hadda sensitive laho oo isleenahay farmaajada saameyn bay ku yeelanay ama caqabad bay ku noqon karaan waxaan cabasho ahayn ismalihi farmaajo wax saameyn ku imaanaya waayo beel caalam iyo beesha adduunka dhan baa ninkan waxa weeyaan baa tabar u weeday oo policy la ciyaaray marka ciyaal yar oo mucaarada meelaha ka hadlaya waxaan u maleeyaa inaan wax sensitive aan ku yeelanin baan u maleeyaa marka waxa leedahay afarta sano loogu cimaamado kalsooni baan ku qabnaa doorashadana qaabka u dhacayso kalsooni baan ku qabnaa asaga soo noqoshadiisana kalsooni buuxda ku qabnaa magacayga waa Khadra Maxamed Baladha Khadra waxaan ka hadalnaa doorashada 2020 hadii lagu dhaado codee yaa codeyn lahaa anu maxay Cabdi Farmaajo aan codeyn lahaa maxaa farmaajo ugu soo bisay codkaaga maadaama dad badan la tartamayo ka awood badan afarta sano xilka ay si fiican buu shaqeeyay hawada Soomaaliya soo celiyay maxaabista Soomaaliya soo goray mushaarka si fiican bixiyay waxa leeyahay maxamed Cabdi Farmaajo codka loogu celiyo marka waxa leedahay afarta loogu cimaamado soo afarta sano soo socoto isagoo loo codeeyaa